الحمد لله ولا ليال dadka mu'miniinta ilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahi rumeeyey kitaabkiisa rumeeyey sifooyinkaas leh ilaahi subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay salaadooda ilaaliya laqwiga iyo hadalka cantara baqashka ah aan macnaha lahayn ka dheer wax badan oo adduunka hadda qabsaday oo social media iyo وعن بقش أما دنبيه وين والذين هم عن اللغو معرضون أي كم ذا ذاتك مؤمنين تأه أستامه هذا علامة هذا أما شيكوين كان معناها لهين أما هذا مرارك قاركوت فديكو در يوحاس يو لغو بدن يو هذا البدن أو ترب بدن وعن معناها لهين وكجرو حالديه كراوا معناها لغوي أوه dadka mu'miniinta ay ka dheeryihiin rag iyo dumarba hawshaas zakadooda ay bixiyaan way sadaqaystaan furuujtooda ay xifdiyaan xaaraantay ka dhowraan rag iyo dumarba wixii ilaahay u baneeyay mooyaane ammaanaday ilaaliyaan ballantay ilaaliyaan salaadooda ayay daa'imaan waana ku khushuucaan waana ilaaliyaan waqtigeeday dhowraan weesadeeday ilaaliyaan waqtigeeday ilaaliyaan arkaanteeda iyo waajibaadkeeda iyo sunanteeda iyo bay ilaaliyaan dhexdeedana waa ku khushuucaan waa ku xasilaan waa ku degaan waa ku raaxaystaan calaamaadkaas madaad isku aragto insha allahu tacaala waxaa tahay qof mu'mina marka adiga isku imtixaan laqwiga ma ka fogtahay mise kama fogid ballanta ma ilaalisaa mise ma ilaalisid ammaanada ma ilaalisaa mise ma ilaalisid salaadaada ma ilaalisaa mise ma ilaalisid khushuuc dhexdeeda ma ka heshaa mise kama heshid intaas haddii laga helo ama aad isku aragto insha allahu tacaala ama wax kaa maqan yihiin waa inaad ku dadaasho wixii kaa maqan oo aad dhammaystirato si aad u guulaysato u liibaanto adduun iyo aakhiraba halka gaalkuna u khasaaray oo aanu wax liibaana lahayn haba yaraatay sida aayadda u dambaysa suuradda waxay ku bilaabatay qad aflaxa almu'minuun waxay ku dhammaatay innahu laa yuflixu alkaafiruun kaafiriintuna maba liibaanaanba sidoodaba laa fi dunya walaa fi alaakhira ma laha liibaan qof ilaahay ka fogaaday rabbigii abuuray inkiray liibaan ma leh guulna ma leh marka taas waa dardaaranka koowaad kelimadeenna maanta ma jiro insha allahu tacaala qaylo badan ma jirto laakiin waxaan ka hadlaynaa tawjiihaad jaaliyaadka soomaalida ee dibadaha dalkooda dibaddiisa ku nool ayaynu ka hadlaynaa inaan bal wax ka falanqayno wax ka taabanno samaan iyo xumaan faa'iido maxay leedahay dalkooda maxay ka qaban karaan maxay tari karaan ummadaha kale ama jaaliyaadka kale sidee ugu tartamaan dalkoodii hooyo oo ay ka yimaadeen iyagoo dalal kala degan siday wax uga qaban lahaayeen inaan wax ka ogaano oo jaaliyaadka kaleeto siday u dhaqmaan laftigeeda aan wax ka ogaano wixii wanaagsan aan qaadanno wixii aan fiicnayn aan ka tagno si aynu insha allahu tacaala liibaantaas wada gaarno dad muslimiina ilaahay idankiisa mu'miniina way dadka soomaalida ka waranka jaaliyaadka oo magacan hadda loo bixiyay oo afka qalaada ah oo diasporada la yiraahdo kelimadu waa kelimad yani af qalaada asalkeedana Greek ka timaal dhaha oo dadkii ka haajiray oo waqtigaas ka tagay ayay this breast
kelimad saas oo kale isku rakiban oo laba juz ah ayay afka Greek ugu yeerayeen kadibna way soo intiqaashay yuhuudda kamid ahayd dadkii yuhuudi Greeka ka qaxday qarniyaal aad u fog ثم بعد ذلك iyaga laftigooda yuhuuddaas oo mar walba qaxi jirtay leen ummad hore oo qadiima way saad ogtihiin oo Spain bay ka baxday Greek bay ka baxday dhul badan ay ka baxday Masar ay ka baxday meelo badan ay ka baxeen oo dibada kale shataad ku faafeen oo ku kala yaaceen marka kelimada macnaheedu waxa weeye dad isku asal aha oo kala yaacay weeye dad isku asal aha oo kala firdhay oo meelo kala duwan degay ayay macnaheedu uu sheegayaa diaspora marka dadkan Soomaaliyeed ummadaha hadda diasporada la yiraahdo way ka mid yihiin waa dad ummad hal ah hal wadan bay ka yimaadeen asalkooda Soomaaliya laakiin maanta mashriq iyo maghrib laga soo bilaabo Australia iyo New Zealand oo qorraxdu meesha ka soo baxda oo New Zealand ilaa iyo galbeedka iyo meesha ay ka dhacdo ya Mareykanka iyo Seattle dhinacaas inta u dhaxaysa oo Afrika iyo Aasiya iyo ummadaha kaleba way degan yihiin iyo Carabo iyo غيرkeed sharqi iyo qarbi marka saasay magacaas loogu bixiyay maxaa sababta waxa sababay طبعا dalkoodii baa dadkaas waxaan ba ka soo saaray ama dagaal ka soo saaray nabadgelyo la'aan baa ka soo saartay deganaansho la'aan baa ka soo saaray diasporooyinkii hore qaarkood gaaja ka saartay dagaal ma jirin oo Ireland iyo kale Irishka dadkan Irishka la yiraahdo waad ogtihiin waa inala mido diaspora badan oo malaayiin ay adduunka ku kala firqsan yihiin ila America ila Australia ila meel kasta asalkooduna Ireland bay ka yimaadeen Irish waa Irish way isbahaystaan way israadsadaan iyadoo tobanaan qarni hadda ay ka dambayso bal waxay u sameeyaan yani hay'ado gaara oo dabagala oo tiriya oo ka faa'iideeya si loogaga faa'iideeyo dalkoodii asalka ah marka dadka diaspora la leeyahay waa dad isku asal ah dalkoodii asalka ah ka firdhay ama ka baxay dalal kala duwan adduunka degan laakiin wali ay midayso afkoodii baa midaya diintoodii baa midaysa dhaqankoodii baa midaya asalkoodii bay ku xiran yihiin xididadoodii bay ku xiran yihiin marka saasa loogu yeera marka dagaalana way sababeen deganaan la'aan way sababeen xurriyad la'aan way sababtaa gaajo iyo fakhri sida hadda Irishkaas aan sheegayno iyo Yurubiyaanka in badan oo kamida oo Mareykanka iyo meelaha u qaxay gaajo iyo waxa sabay xurriyad la'aan baa inta qaarkood geeyay meelaha jaariyada Soomaalida marka aniga si gaar ah qurbo waxaan galay anigoo yar oo dalkeenu degan yahay oo nabad yahay fursad kororsi raadi ama shaqo ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto bay ahayd dalkana dad yar baa markaa ka bixi jiray dalkeenu uu deganaa ma jirin wax dibad yani hunguriyeeya ma badnayn ama dad u baxa shaqo xoogaa shaqo raadis ama waxbarasho gaara laakiin alxamdulillah dalkeena waa ku nabad qabnay waa ku ceyshaynay nolol baan ku haysanay kadibna waa dagaal dhacay waynu kala firqnay marka waynu kala firqnay meelo badan baynu marka saasaynu ku soo galnay magacii diaspora ku soo galnay ummado kale naga horeeyay Irish baa naga horeeyay Yuhuud baa naga horeeyay dad ummado kale oo magacaan isticmaali jiray ayaa jiray Indianiska naga horeeyay Hindida iyo qeyrkoodba oo aragteen meelahan joogeen diaspora ahaayeen wax kale ma ahaayeen ama shaqo ha ka soo kaxayso dhulkooda ama deganaan la'aan qaarkood ha ka soo kaxayso ama fakhri ha ka soo kaxeeyo iyo hunguri raadis ilaa iyo adduunkan iyo Afrika oo dhan bay ku fideen marka iyaguna diaspora way lahayn waxa la yiraahdaa labada diaspora ugu weyn oo hadda yani aadka dalkoodana ugu xiran
dadkoodii ugu xiran rootskooda oo dawladaha hadda jira dawladdan sahyuuniyadda ee Israa'iil la yiraahdo ee dhulka Falastiin qabsatay ilaa iyo 1948 qarnigii la soo dhaafay horraankiisa ama bartamihiisa waxa dhisa oo ay ku nooshahay hadday tahay ciidan hadday tahay lacag hadday tahay taageero waa diasporadeeda waa yuhuudda adduunka ku firqsan waay baa ku haysa magaca meesha inta joogta meesha ee dadka guryahoodii ka qaaday ee dhulkoodii ka qaaday kuwa ku haya meesha oo يعني taageerada lacageed iyo taageerada hadda waqtigii Gaza kaliya marka ay dhacdo dagaaladu dhacaan waxa kordha diasporadoodaas sida ay u taageerayso yuhuudda ayaa kordha balaayiin lacag bay soo xawlaan nidaamna way u samaysteen nidaam bay u samaysteen taas ay dadka kaga horeeyaan kama xoolo badna dadka kamana tira badna laakiin nidaam bay u samaystaan ay waxooda shilimaadkooda ku urursadaan hindida ayaa la mid ah oo ku xigta hindida ayaa la mid ah bangiye u samaysteen diasporadooda bangiye gaar ah oo taageeradooda ama lacagtooda lagu ururiyo sanadkii 2000 5 bilyan iyo 200 milyan bay ahayd taageerada ama lacagaha ay ku soo shubeen hindida diasporada yuhuudda waxay bilaabeen shirkad diasporada ka faa'iideysa soo ururisa lacagtooda si dalkaas loogu dhiso loogu taageero ciidankiisa hubkiisa wadooyinkiisa isbitaaladiisa technology-giisa iyo waxa soo dhan dalkooda loogu hormariyo dalka loogu hormariyo iyagana dhisay 1951 1948 bay qabsadeen Falastiin 1951 ra'iisul wasaarahoodii u horeeyay Ben Gurion ayaa wuxuu ku dhawaaqay hay'adda inay dhisayaan oo deynta laga qaadanayo diasporada yuhuudda maaha bangiga adduunka aadeen maya yuhuuddan ka rabnaa buu yiri inay adduunka joogtaa inay iyagu nasiyaan deynta yuhuuddana waa taqaanaan oo ribo aabayaashii ribada waay markaas waxay leeyahay qof walba oo $1,000 siiya dawladda waxaan u saareynaa interest baan u saareynaa oo 5 sano kadib ama 3 sano kadib 6 biloodba wixii faa'iido u soo baxa oo interest aan siinayna adduunka ribadiisa iyaga faafiya وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل إلى القرآن كنوش marka waagaasay bilaabeen ilaa hadda 5 bilyan oo dollar bay sanduuqaas ku shubeen sanduuqaas gaareen 6 biloodna faa'iidada baa iyaga lagu celiyaa bilaash wuxuu bixinayaan donation maaha tabarucaad maaha waa investment oo kale dalkiina waa ku dhisaynaa macna faa'iidana aniga igu soo noqonaysaa anoo New York jooga Minneapolis jooga London jooga Australia jooga Melbourne jooga Sydney jooga Sweden Stockholm Denmark Finland meel walba aan joogo igu soo noqonaysaa dadka asaasay marka khibradda diaspora ahaan ugu horeeyeen oo u wadeen annaga marka jaariyaadkeena alxamdulillah dadka Soomaaliyeed jaariyad ahaan inaan ka hadlo waxaan u maleynayaa dadka ugu xaq leh baan ku ahay kamid ahay waayo waxaan qurba soo aaday anoo yar oo 16 sano 17 sano meelahaas jira waagaas meel fog maana aadin dhulkan Carabaha Yemen iyo Saudi iyo intaas unba maarta ku noolaa laakiin laga bilaabo markii la soo qaxay oo Soomaalidii soo qaxday adduunka ku kala firiqday ayaan waxaan uga daba tagay dacwo ahaan meel kasta oo ay ku nool yihiin guri tuulo daldal magaalo Mareykanka soo bilo Canada labadaas North America la isku yiraahdo meelaha jaaliyadaheena ugu badan yihiin bay ka mid tahay oo ay qaxeen muqaal fiican iyo joogitaan fiicanna ay ku leeyihiin
كدبنا يوروب تقلبات يوروب تكبري دقاجة هيدو عيدنا ما هذه وابا قاجو روشكا وقت دو سيداي مركا يوروب تقلبات أوردن إنجليز كسوبلو صدح الإسكندنافيان كا سوما صدح الإسكندنافيان كا وأفر فنلاند وكودر واشن جرمالكا يا فرانسيسكا يا تليانيكا يا هولنديسكا يا بلجيمكا لوكسمبورغ ودحدا كاga jirta أستريا nimankan la yiraahdo maxaan ku sheegaa Switzerland oo bangiyada adduunka haysta intaasna waa Yurubta galbeed weeye 12 wadan intaasna waa la buuxaa wala jooga jariyadaha Soomaalida ilaa waxaan u malaynayaa haddii la isku dardaro 600 ilaa 700 oo kun inay gaarayaan Mareykan iyo Kanadana ilaa 1 milyan inay ku dhawaanayaan baan jeclahay dhanka bari carabaha marka la soo aado marka khaliijka masar ciraaq wax badan inay kaga ma jiraan iyada burburtay suuriya wala joogi jiray laakiin way burburtay iyo liibiya iyo kuwan faransiisku gumaysan jiray algeria iyo morocco iyo tunisia waxba badan kuma inaan lahayn oo jaaliyada dhanka bari marka laga sii aado شبه القارة الهندية إنديا اسكودر باكستان بنغلاديش iyo إنديا hal dawlad bay ahaan jireen kadibna xaggaas u sidaaf kuwa yar yar Philippines iyo waxaas iyo Thailand iyo waxaasna iyaguna goos ma ahayna kuma lihin wax badan kadib hadda bari ka sii aadana intan inda yarta ah ama China ha noqoto ama Korea ha noqoto ama Vietnam iyo kuwa la mid iyo waxaas wax badan kuma lihin China iyo hadda ganacsi loo tagaa iyo arday fiican baa joogi jirtay China kulli waqtigan ku ogaa mar baan hal jaamacad 400 oo arday muxaadaro uga galay 400 oo arday hal jaamacad kaliya oo China Malaysia iyo Indonesia oo dad muslimiin ah iyagana waxbaan ka dhex degannahay Japan waxba kuma lihin dadka ajnabigaana sidooda ma soo dhaweeyaan Australia iyo New Zealand baa marka dhinacaas ka sii xiga oo la jooga iyagana jaaliyada joogan intaas ba khariidada adduunka aan ku faafsanahay khariidad ballaaran waa aad u ballaaran maxay dadka Soomaalida meesha ka sameeyaan faa'iida maxaa khasaara anigu marka aan qiimayntayda gaarka ah oo in badan intaas aan ka maray inteeda ugu badan wax yar mooyaan Australia oo dhowr jeer inta la iga casuumay diiday wadankooda inaan galo ma hina inta kale to waa maray dadka Soomaaliyeed waxa badan alxamdulillah aniga waxa ila badan faa'iidada ila badan disbrada dadkaas Soomaalida qurbaha tagay bal sistemyada iyo wadamada iyo meelaha ay ku noolaadeen dadka Soomaaliyeed jaaliyadaha ugu wanaagsan oo ugu maaragtay nashiidsan ugu firfircoon ayay ka mid yihiin haddaanay kuwa ugu horeeyo ku jirin tusaale يعني wax badan waxaan anigu maray dhinaca Mareykanka iyo Canada North America iyo Yurubta iyo Afrikadan aan ku daro aan hilmaamay oo dhinaca barigeeda ah ilaa koonfurteeda oo kor ka soo bilow Ethiopia iyo Djibouti oo iyagu walaalaheena xaga ka soo bilow hoos soo soco Kenya meelaha ugu waaweyn oo Soomaalida qurbaha ay joogaan ama degan yihiin dalkana wax ku leeyihiin Tanzania Zambia Mozambique South Soco dhinacan bay Soomaalidu u badan yihiin galbeedka wax badan kuma lihin de Nigeria noqoto iyo Gambia iyo waxaas waxyaalo yar yar oo teltel ma ahan laakiin waxa aad loo joogaa dhankan bariga ah iyo koonfurta ilaa South Africa ka gaarto Mozambique Angola Botswana ila South Africa
meelaha loogu waaweyn yahay bay ka mid tahay marka intaas aan u warhayo badankoodna aan maray 1999 dareenka dadka ayaan idin sheegay si noo arkayeen dadka qaarkiis muslimiinta gaar ahaan galab anigoo masaajidkan imaamka ka ahaa Atlanta casarkii ku tukaday waxay yimi oo ila tukaday oday African American oday Mareykanka madow oo nin muslim ah wuxuu yiri waxaan soo islaamay 60meeyadii 1962 63 meelahaas waqtiga annaga xorriyadda qaadanay laakiin islaam waxba kama aanan garanayn islaam wax badan kama aanan garanayn New York ku noolaa Harlem xaafad la yiraahdo madow ku noolyahay marka wax adduunku soo socdaba wuxuu yiri ninkaas dabcan ma sha Allah 1963 wajigiisu waa nuuraya waa nin madow garcad timacad you guys buu yiri idinka Soomaalida you guys ma ogidin ilaahay baa halka idin soo diray wala idin soo diray idinku isma keenin hadalkii ninkaas isla hadalkii waxaan tagay South Africa muddo kadib 5 sano 6 sano kadib magaalada Cape Town baa waxaan kula kulmay nin isagana muslina asalkiis Indonesian iyo Afrikaan isku jira oo culimada meesha ka mid ah Cape Town markaas wuxuu yiri Soomaalidiina Ilaahay baa halkaan idin keenay idinku iskama iman my dear brother you do not come for your alone Ilaahay baa idin keenay idinka iskama imaanin meesha waxaan la yaabay maxaa iswaafajiyay weedha ninkaas Mareykanka jooga oo muslimka ah madow iyo ninkaas South Africa jooga 13 ilaa 15 kun oo mile bay isu jiraan waa markhaati marka amaan ziyaada maaha kamalihi laakiin waan taabtay dadkan Soomaaliyeed waxaan ku taaban magaaladaas Atlanta oo aan joognay xogaa yar oo jaaliyad ah oo Soomaaliya baa ilaa 94 kii meelahaas timi 95 96 say u soo gurmanayeen waxa la gaaray 99 kii jaaliyad badan oo naga soo horeeyay baa jira Afghanistan muslimiin Arab muslimiin Suuriyan Falastiin Hindi Pakistan marka waxyaalaha dadkan Soomaalida ah ay dadkan kula yaabi jireen waxa weeye jaaliyad iyada kaligeed ah oo resourceskeeda ama iyadu hantideeda kaliya inta ictimaado hanti kale aan ku tashan oo masaajidii dhisata oo maraakistii dhisata oo shaqooyinkii gasha oo maxaa ku siyaasadii ka qayb gasha waxbarashadii ka qayb gasha tabarucaadka ugu badan ku bixisa iyadoo hantideedu yar tahay hantideedu waa yar tahay aad bay u yar tahay haddana jaaliyadkan kale wax aanay samayn karin samaynaysa kaligeed iyadoo ah oo bimaana haddii walaalaha Bangladesh ama India ama ka yimi meelahaas ay masaajid dhisayaan muslimiinto dhan baa ka qayb galaysa Arab iyo Ajam caddaan iyo madow laakiin Soomaalida waxay ictimaadayaan ama ku tiirsan yihiin markay rabaan mashruucaas inay sameeyaan in afgaar ay ku hadlaan iskula hadlaan afafkan kale dadkan uma furno wax badan marka iyaga kaligeed baa hantidooda ictimaadaya markaasay maraakistii iyo masaajidii ay sameynaysay ummadda islaamka ah oo dhan intay isugu tagtay ay ku samaysay bay kaligood taagayaan miyaanay dadka soo aanahayn marka miyaanay lahayn marka wax loo ictiraafo oo gaar ah dadkuna u ictiraafeen saasay ugu ictiraafeen magaaladaas marka muslimiin badan oo 50 kun ka badan baa jooga 100 kun gaaraya annaga ma aanan lahayn masjid gaar ah
oo aanu ku dhigano diintiina ku dhigano caruurtii dugsiga ugu dhigno quraankii lagu bilaabo magaaladu waa ku yarnahay 3,000-4,000 oo qof baa joogta waxaan idhi wasaajid waa inaan sameynaa markas waa inaan sameynaa haye وحق العقل كنا هيئة بس من الصومالي Islamic Society of Atlanta جمعية الصومالية مسلمين تأه أتلانتا وهي لعجها الله ورورية دوكسي هلا دقوا قرآن هلا دقوا ميل بالكريه ماشى كرده بقى قبله كتو كذان درسي حسبت يا حد الله آخريا عرورت الدوكسي الله دقوا صلاة اللي قلتو كذا جمعة اللي قلتوها هذا ماشى وعريري دينا خمرة نجحت خمارات باربا نجحت دينا كنيسة بنجحت ماشى كمان نولان كرناه عن سميسن ومركز عنيسن وهذا مركز دور بقولوا كن هل مليان لعقت أصور رباي مياه أنا جهينا جليدنا وودي كرتا وروا وودي كرنا يا سمين دول باسوه هلني شكله مركان قابيو دول بالاسوه هلي وين أو تضبط إكر يبرأ هم قريبا نجا قلي وقلني كونتراكت صحيح $5 عربونا نديم معبد وحوها هندي أي إسكال هذا هندي هندوس صنميضة يرير كاهو قريها إيو دقع إيو ويالي مركي هورا كنيسة بيهد هندي دا كلا وريكتي معبد كرياتين أنا قانا إيجي من كيب سنة وهي واحد صدح بقول يصدن كن بان إذن كي يبنينا دولك يقولي كان يرى كدسان صدح بقول يصدن كن أو $. هشيسكي واقلني 5,000 أو عربونا واديبني 7,000 واحد ديبي يسام بيدهم بالجدهد لعقت انت هذا كلا وحنو يدين كوكا قيبين إن هالسنة جدهد انترست الآن إن الكوب حسان لعق إسلاك بشي سديد يطبنكن يصدح بقول يصدن $. بينوت بالولبة مشاهرة هانا قسط سديد يطبنكن يصدح بقول $. مركز شيء كان الجري يبقى جودي يسقفت ورهذا أكونكم محل نوجو جرا أكون كأنه محاكو جرا تضبكون شنكم واضح إن الله بكون أكو هارتي هي أو تضباتكم بشأن الله نجرب آخر كذا بالجديد لعقت أنت هرتنا بالولب سديد يطبنكن يصدح بقول يصدن $. بالله نجربه حقيقة كيننا ما بهينه لا بكون بابا أكون كجرتي قدقي هوشة وكشري وكهذلي وحلوبتي وقلينا إلهي بكينا مساجد إلهي ويه رقنا وحي ليهن وروحا والرزقي ما بهينا با سببت هذين ما هينا إلهي وإن تاجيري يا واسح لكن سببتي ما بتعلي لعق ما هينا حقيقي كينيسان مركي الضمبه شوف التاريخ وياه يدين شيء dadka Soomaaliyeed nuxurkooda idin sheega saddex nin oo waxay lahaayeen dukaamo lahaayeen yar oo hilibka xalaasha iyo waxaas lagu galo gudiga kamid yihiin Soomaali meel kasta ka yimaadeen gobol kasta ku jira حتى Djibouti waa ku jirtaa waxay yiraahdeen صدح ضيضة هانتدان عن قناعس غير small business كان عن هيصنو دكامده وحن الرحمينا مسجد ك هدي العقد اللي بيحن كريوايو هدي العقد اللي بيحن كريوايو هانتي ضيضة أيان حراشينا هاللغو بحيو ما شاء الله هي وهي وقت الصحابة يبقى نصوح حسوس وهي صحيحة مرك هدو بريها كانوا قننه markii runtu timaado waa saxiixeen qaninkay ku duugeen taas lagu dhiiraday fundraising baa la qabtay fundraising kii u horeeyay markaan qaban gabar baa bilowday $3,000 bay ku bilowday way isdaba socotay 9,000 baa meesha lagu ururiyay
halka goob 9,000 baa lagu ururiyay hal qof oo aan Soomaali ahayn ma joogo bishii intaanay dhammaan 70,000 baa la bixiyay 70,000 markaan bixinay gurigii waxaan la soo wareegnay gacan ku hayntiisa iyo furayaashiisa laakiin sanad gudihiis waa inaan lacagta dhamaynaa markaas baa title deed kana la ku soo wareejinaya bil kasta waxaana la ka rabaa 18,000 alxamdulillah jaaliyaadka kale baan ku bilownay Virginia Minneapolis Nashville Boston Seattle inta meel kasta Soomaaliya ay joogto magaalooyin kale bil walba lacagtii waxaan ku bixinaynay ka hor waqtigeeda markay ka dhiman tahay 3 bilood muddadiina loo qabtay lacagtii 3 bilood ee dhiman gacantan ku hayn intaan u geynay lacagtii baan waxaan niri qaata lacagtii waatan waa idin wada hormarinay 50 iyo xoogaa kun keena waraaqii title deedka la soo wareegnay wuxuu noqday masjidkaasu masjidka ugu weyn oo dhul ugu ballaaran haysta oo muslimiintii oo dhamicidii noogu timaado ay nagu la tukato 50 sano deganaa magaalada saasay ku dhamaatay waa masjidkii ugu horeeyay ee Mareykanka US ka Mareykanka ay Soomaalidu مسجد وقفة ولا عكتي سيل بحية ولا ليها وان كراء هين اي كتاكتو شن يطبنكي اكتوبر كون سقال بقول سقاشن يا سقالكي بانو فرني ما فرني ما دماضي مساجد دي كلا قبل الله كلا اساسا كوبلونا مركا لبدي يكون مركا دعدي يكودي سبتمبر 11 مركا دعدي سبتمبر 11 markay dhacday wax yar ka hor baan waxaan u sameynay 6 markas oo horeys oo aanu lacagtooda bixinay intooda badan San Diego Atlanta Nashville Tennessee Minneapolis iyo Seattle maraakiistii u horeysay oo qaarkood wali kira tahay Abu Bakarka Minneapolis uu ku jiro oo wali kiro ku jiro ayaanu u sameynay dallad culimada Soomaaliyeed ee waqooyiga America la yiraahdo waqooyiga America 6 biloodba waxaan dhisaynay masjid 6 biloodba markas baan dhisaynay qaarkood 1 milyan iyo bar ay yihiin lacagtaas oo dhan waxa bixiyay Soomaali baa bixisay waxa credit gaar aan u siinayaa gabdhaha Soomaaliyeed Soomaaliyo dhan waa wada deeqsiyaal Soomaaliyo dhan waa wada deeqsiyaal dad deeqsiyaal waa uma deeqsi ah laakiin gabdhaha idinka sii deeqsisan idinka dahabkooda biilkooda waxa ay haystaan salkay ka soo xaqayaan marmarka qaar salka ay ka soo goynayaan waxa iga marxaatiya hadda biyo cabaysan Sooma Sheekh Cabdirasaaq waan ka idin qaadanaya uma ana sheegin waa siraan idin sheegay waxaan u malaynayaa maalintii oo dhan 4 maalmood way meeshan biyaha saad cabaysan 20,000 ay fadhido ilaa 85,000 ilaa 90,000 oo dhalo oo biyo ah baa lagu cabayaa meeshaas hal gabar oo Soomaaliya bixisay hal gabar oo Soomaaliya hal gabar Sheekh Raaleega general marka waxay itusisay marka taas dadkaanu ceebo waa leeyihiin ay qabyaaladu ka mid tahay oo ummad bani aadam oo dhan baa naqsi leh kullu ibni aadam wuxuu leeyahay ceeb iyo naqsi ceebahooda qabyaalada ka mid ceebahooda si iska badownimo ah mararka qaarkood inay u dhaqmaan baa ka mid ceebahooda marar kale firfirqsanaan baa ka mid laakiin annagu waxaan aragnay oo soo taabanay
oo khibrad intaan aan ku soo gaarnay Soomaali si wada jir ah inay wax wada qabsan karto inay mid noqon karto hadday hesho kalsooni iyo hoggaan hadday hesho kalsooni iyo hoggaan dadnimadeedana leedahay ficilkeedana leedahay tusaalayaalka marka ban raba inaan badiyo ka soo qaad marka Mareykan ka soo tago Koonfur Afrika tag 2006 baa liigu casuumay oo aan tagay iyadoo xoogaa tafaraaruq qabaliya uu jiro qabyaaladeed waqti kulul bay ahayd maxakamado dawladdii Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariisto baydhabo joogta qabaa'il xoogaa loo kala maaragtay durugsan yahay la isxifaalaynayo ayaan lixda ka tagay Soomaalidu waddanka way ku badan tahay markaas aan tagayo dhowr iyo 10 kun 20 kun baa jooga laakiin hal mawlic kuma lahayn oo iyagu ay leeyihiin oo ay samaysteen waa 2006 taariikhda xifdiya waxbaan idin sheegaa yaan niyadda laydinka jebin waxaan idinku sheegayaa sheekooyinkan inaan la idin dhihin Soomaaliya wax ma qabsan karto isumana iman karto inaan la idin oran waxba kama jiraan waxaan ku qanacsanahay inay isu iman karto waxaan ku qanacsanahay inay wax wadaagi karto waxaan ku qanacsanahay jaaliyaadkaas inay xoog badan ka qaadan karaan gudihii ay ka yimaadeen sidii u dhis lahaayeen inay qayb weyn ka qaadan karaan laakiin waa inay helaan kalsooni waa inay helaan hoggaan ay ku kalsooni labada hadday helaan waxay hayaan bay ku dhiibayaan Soomaalidu waana waxa uu ku dhismay meeshii shanta masjid aan ka bilownay 2001 2001 maanta Mareykanka dalladda culimada Soomaaliyeed ala yiraahdo 40 markas oo qaarkood 5 milyan 6 milyan oo dollar aan ku ibinay ayaa maanta ka dhisan oo muslimiinta oo dhan ku intifaacda masjidkii aan idin sheegay Atlanta maanta 1000 arday oo muslimiina baa jooga Soomaalida ugu yar oo 300 ah 700 oo kale waa muslimiinta kale oo Hindi leh oo Pakistani leh oo Arab leh oo wax walba leh Mareykan leh oo cid walba leh cadaan iyo madow leh oo dhalinyaradii Soomaalida ahayd ee qiraa'aadka xataa Sheekh Cabdirashiid ijaazooyinka ka qaatay iska dhaaf meel kale fog baa aadin ayaa u fadhida oo quraankii sida ugu fadhida markaska Soomaaliyeed bisha Ramadaan marka la gaarana annaga u qaybina imaamiyada maraakista magaalada iyo gobolka oo dhan iyo gobolada kale ba annaga u qaybina ardaydii tujin lahayd waxaas waxay ka dhalatay jaaliyaadkan isku duuban oo Soomaaliyeed waxyaalahooda nuurka ah oo wanaagsan meeshii South Africa oo aanan mawlic ku lahayn 2006 maanta 40 goobood ka badan oo Soomaalidu leedahay ayaan ku leenahay maanta waa 16 sano Soomaali baa dhistay hal shilin oo kale kuma jiro taas marka waxayna tusisay oo nambartay dadkaanu waxyaalo kale ka qaldan laakiin inay wax qabsan karaan inay wax hurid leeyihiin inay deeqsinimo leeyihiin waa kan meel fog ma siyaadayo Yurub hadda timaad ilaa 150 goobood baan anigu ishay gacanteeda ku maray qaarkood in badan wax ka bilaabay waxa kamid ah markaskan Oslo Dr. Ali Maxamed Saalex oo imaamka ka yahay bartamaha magaalada caasimadda Norway way lacag 12 milyan oo dollar ka badan ayaa ku baxday inta badan waxa bixiyay Soomaali gabdho iyo wiilal baa bixiyay maanta muslimiin oo dhan baa ku intifaaca
mid kaloo labaadna hadda waa lagu daray dadkaanu marka jaaliyaadkan samaanna waa leeyihiin xumaanna waa leeyihiin laakiin wanaagooda badan wanaagooda haddaan intaa ka sheegay waxaan ku darayaa maanta magaalooyinka qaarkood oo Yurub iyo Mareykan ah haddii aad ka degto adigoon cidna la hadlin qof Soomaaliya helaysaa gaari ku qaado oo Soomaaliya helaysaa meel aad seexato oo Soomaaliya helaysaa meel aad wax ka cunto oo Soomaaliya helaysaa qof ku raaco ku adeego oo Soomaaliya helaysaa dhakhtar Soomaaliya helaysaa cid walba oo ku qaadad helaysaa oo aadan qof kale u baahan adeegiyo dhan ku haya bannaanka shaarica hadda isaga soo degto taas waa qodob waa ummadaha kale iyo jaaliyadaha kale oo dhammi u qirsan yihiin maalin dhaweyd markii Trump uu nacay nin Masriya baa soo baxay wuxuu yiri يا إخواني أيها العرب أيها المصريون عربي بكو هدلايا والمصاري والعربي والواد جوكتان ودن كان مريكان كواد جوكتان بوي مصاري أنك كليا دور مليون بانكو جوكنا بوي 11 مليون أما 6 مليون لأنه هو يرى سومالي ميقيه بقول كن بي جوكنا والله بقولكم أما شن بقولكم هل المركز أنك أنتاجني ما هيسانون هل قف أو أن ميلكم كرس جيني ما هيسانون ما أهم معنى هذا إننا إلهين وأنا إنجنير بدين وأنا دكاتير بدين وأنا أقوم بدين وأنا حول بدين لكن مدان هذا اللي هي وتفرارق صنتاي بأملاها كلا كم السير يا سيدا يسقطوا بنتاي أما هو هذا سويسط وسنبوس جود فايل كلوجو سوقله يصفق يعنتضو دي حتى لسورات بلغة مسير سي حجابك إلهي وحنا نقول ما هذينا أنجو إنانو كالنت كوات كقاضن أو قبلها الصوماليات أي كقاتين إن حجاب كاس أستانت إسلامي أفافيان لو أدونك كفافيان هداي قبلنا ستولة كل جد أي جوت كل جد يلو إن الشرير كذا وضعتين مريسا أو قاري كذا وضعت متبي كجوجيم بوليس بلي وهرسي أو أن لا أقون كان لا أقون أيام ماركتي وحي صوق الشيء meel bangiga soo gashay bangiga markay soo gashay baa alarm la taabtay markaas booliiska la ordaaya iyo dadkii oo kala dhuntay iyo adduunka kala waxa loo maray qof mask qaba oo doonaya bangiga inuu dhaco mar dambe ku baraarugeen ku yaqaan ba jira marmaya war gabadhii heblaaya ahayd oo waxa weey waa muslimad weeye saanay u leebistaan sidii baa markaa booliiskii yimi dadkii yimi aluu kala حتى تاسوا صومرني مقالة لندن أنا يقول هذا الصبح صلاة الصبح صوت كني أنا ننكله قارقة صارن وصبح أحد واحد دقائق متشوقه بروح أنا أرجعني هل قبر أو صوماليا أو حجاب كامل جلباب كذي وضعته أو ماشى بس كلا جرعوا كل جيت تاجني سامر كان ودافني وهذا ورينقول إلي بل أنا أرجعني قبردان يا أرجعني أمي رايد أوبا هانتا من الميل جارسينو أما إحساس مركا أصدقائي أوصل نقول هيا ولا السلام عليكم لو سمح حكي وصعتها أنكو قادنا أنكو جينا أما ماشى ما بس سوق يا شقة وصعدا واحد ما لها وحباك عبسنين وحبل أنا قالوا وبقيني ما كعب سنيس ما كهي بيسنيس حجاب كذا وما هي بيسنيس كاسن وافافن قرآن كينا وافافن وأنا هذا أقيمين عرضي دي هنا هو لنا وخساري وأنا جسوا قارين بربر قويس أنا جسوا قارين وحول بيوحي ليهن يعني برايس عاد بحنا سنين نعم ركبضن أو صوماليات ركبضن أو صوماليات بهاوشوا دي قبل مركل لا تجي قربها لا تجي قبل دي بتجي سئل معها dugsiga iyada geynaysa iskuulka iyada geynaysa guriga iyada ku haysa ya ninkii ama wala kala tagay si kastaba lagu kala tago ama waa maqan yahay ama meelahan uu soo jira ama laga yaabo siyaasad buu ku jiraaba kaligeeda la wareegaysa taas burburka waa nagu dhacay furiin badan waa dhacay dhalinyaro badan oo maayada naga raacday ama mawjadu ay naga qaadatay oo xabsiyada iyo إصابات دروغة يوحاسي قلي لكن أمضاها كلام مركل الله في ريو حتى أكو يربى ولناي واجري عندي باتوين كاسونا
laakiin wanaaga ka fiican waxaan ku soo khatimaya wadaadkii way soo agstaagay maxaan u soo jeedinayaa waxaan leeyahay iyagana hal baan leeyahay maamulada Soomaalida ee siyaasadana hal baan leeyahay iyo dawladda hal waxaan leeyahay dawladda iyo dadka Soomaalida sida hadda aan sheegay waxaan leeyahay war dadkan Soomaaliyeed ah haysataan ee jaaliyadka aqoon bay yeesheen xoolo yeesheen xirfado yeesheen way aragnimo yeesheen dhakhaatiirta ugu sarreeysa professorada ugu sarreeya injineerada ugu sarreeya bay yeesheen war ka faa'iideysta hantidaas aad haysataan ama diaspora u bixiya ama jaaliyad u bixiya oo maanta Soomaalida ah oo aad haysataan waa kuwa dalkaas dhisi kara weeye kaalinta ugu weyn ka qaadan kara ka faa'iideysta oo weelkii aad ku shuban lahaydeen u tosha oo keensada laakiin bishardi waxaan idin sheegaa maamulada u sheegaa haddaydinaan hanaan hufan la iman haddaydinaan amaano iyo hufnaan iyo kalsooni la iman hal shilin kama helaysaan ka diasporada hal shilin kama helaysaan mana idin dhibayaan annagu waa idin tusnay barxaatigaas maanta 300 oo markas wax ka badan hadda ka hor baan madaxweynaha noogu yimi sheeka iska noqoto iska qaata ma baqarinaayay madaxweyne xasan baa 2014 wuxuu yimi Mareykanka xasan sheekh maxamed taramkiisii hore oo hayim waa duuban tahay waan la hayaa marxaatina waa loo hayaa kuntumeeyada abaanu meel kula kulannay kamid baan ahaa 2 daqiiqo warleysi 2 daqiiqo waxaan ku yiri madaxweyne hantida aad meelaha kale ka raadinayso Soomaali baa ku haysan ku ha ku daalin annaga ku bilaabeen annagu halkan waxaanu ku haynaa 30 markas iyo ziyaado waqtigaas lacag waxa ku baxday 180 milyan oo dollar ah Soomaali baa bixisaan ku waxa lagu wadaa oo running costigoodu 20 sano uu ku socdaa lacag 300 milyan kale ka badan waa 500 milyan 1 bilyan ana ku damaana qaadayo ku yiri adi kalsooni keen iyo hanaan toosan kale Soomaali 1 bilyan way ku bixinaysaa wadankeeda wayna ku bixisaa waana aaminsanahay ilaa hadda taas iyagan leeyahay dadkaas ha laga faa'iideysto laakiin waa dad xisaabtamaya waxay u baahan yihiin accountability waxay u baahan yihiin transparency waxay u baahan yihiin xisaabad annagu bashilimaadka lacagna looguma siinin culimadana looguma dhiibine kalsoonida way waxaad ii dhiibteen waatan gurigii waa kan iskuulkii waa kan masjidkii waa kan lacagtii ku baxday waa tan accountability-geedii waa tan malaayintii meesha aadde waa tan indhihiina ku aragtaan taasay marka ku dhiibayaan taas iyaga saasaan leeyahay Soomaalidan waxaan leeyahay jaaliyadka war xataa haddii la waayo hanaan dawladeed oo lagu kalsoonaan karo oo transparency leh oo accountability leh idinku dalkiina mas'uuliyad baa idinka saaran sida hadda shirkadahaas Yahuuda iyo Hindida iyo Irishka iyo Rwandeska jaaliyadahoodu ay wadankooda u dhisaan baad dhisi kartaan cusbitaaladii baad dhisi kartaan oo wadooyinkii baad dhisi kartaan oo jaamacadihii baad dhisi kartaan hadda wax waad ka qabataan waa ogahay laakiin waa teltel oo waxaad dhisi kartaan yani biyihi korontadii waxa soo dhamina waa ajar waxaadna ku dhisaysaan nidaamka islaamiga isagoo riba ahayn oo ijaara ah shilimaadkiina ay isu geysateen dad accountability leh oo amaano leh baa loo dhiibayaa kadibna waa lagu dhisayaa kadibna waa la kireynaya cusbitaal baad dhisteen ka soo qaad reer Nairobi cusbitaal bay masalan cusub oo fiican bay xamar ka dhiseen hay'adooda dhistay ama ansaar sunna hayso ama hay'ad kale hayso masalan cusbitaalkii waa la kireynayaa kirada idinka laftigiina waxba lacagtiina idinkaga soo noqonaysa sukuugtaas iyagu ay bondiska iyo ribada ku qaataan
بدل كذا إذا كنت سمين كرتان أو إسلامية مريكان بس سمين كرا اسكندنافيان كان سمين كرا إنجليز كان سمين كرا كل جود ويسمين كرا جاليات وحياله يوقع قادن كران ضل كأني إن دبلوديسو أي كم تاي كالن تاسنا يلا إلاوينه هدي حتى لو تي دولة قاعد هل قد دالو إن لا سمي الله يسنظامي حوجا وكلا يعسن هاي جاليات حوجا وكلا يعسنهين الحمد لله أنت ورسلنا أنا وعم كفانا علماء ذا قعنت كوهيسا سكست عيب هالله قشوا وحكست هالله قشوا ولا ددا وحالي هذا قاركود بمساجد اسكو قبصدي فريحنت اسم موجة مساجدي قار اسكو قبصدين هل كان اسكو قبصدين وهل 1% معها ماشي ليش قبص ورشم بقول مسجد أما مركز وهن هذا إنيش شيء هدي صدح أما أفر أما شن حتى علماء قاركود اسكو قبصدان ملا بين علماء المساجد اسكو هيستان مساجد اسكو دريرين مساجد ينا واحد صميني يعني واحد سليين دينتنا يعني واحد كلي إنه مذاكرة وكلسوني ده نقول كانوا الدين تاعهم إيه علماء ذان إيه ضدك إن أخيار تاه نسهل له أقوان له مركا إن شاء الله تعالى أجياشي إن إلى الشذا دينتنا إلى الشذا اسكو ضبنا نظام سميستا كمبنية داس عن شيء أو كلاته أو ضد أمانة له أو حساب له إدين هيانو ترانسبارنتي سميستا ضلك إننا تاس كردسا إذا كن دولة سويهين وزارة سويهين هيئة كلا سويهين هبيرات إذا كن سويهين إلهي سبحانه وتعالى توفيقنا إنه وافجيه ومضى إلهي سبحانه وتعالى قلبي هذا ذا سكانه إلهي سبحانه وتعالى نحرستي سنوس ودجيه ذلك أن سوى برواقاه ونبت قريه ومديسا إلهي سبحانه وتعالى أن تصو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير الجزاء يا محمد إدريس وصيادة ونوس وجدي إلها وأنفعه سجن في ميزان حسناتي الله كياله أنت وحا كلنا